wiilkayga Nuur Cabdullaahi leeyahay see wax u dhaceen wartay wax u dhaceen ba ma naqaan anagoo iska jiifnaa saakay waa berigina la yiri wiilkiina waa la soogtay waa gartay wax maxkamada hoorna la soo saaray iyo wax iska wareystana lama arko waa gartay marka sidaasay wax u dhaceen awalna guriga isagoo jiifay kala baxeen maxkamad lama saarin wax la wareejiyo male meeshii ay geeyeen haddana iyaga kala baxay oo soogtay saaka wiilka waxay ku eedeeyeen inay hoobiyo ku soo qabteen taas ma jirtaa maya gurigay kala baxeen isagoo jiifo ay dileen ba horteena ku dileen ay ku jiideen ay ku darxumeeyeen oo waxa la yiraahdaa anaga dhan aan isku salowne oo gacalkeen weyn oo ciidan u ceesanayna aan la arkin ilaahay moogiyo ilaahay kuwaas naga qabto maandoo gacali adigu ma joogtay xilligaas markii guriga ay ka wadanayeen wiilka anagoo jiifnayba noo soo dhacdeen saqbarkii waa gartay saacadu markay 6 saac ahayd oo 6 saac habeenimo waayeed waa gartay oo la jiifo oo la jiifo markaasay noo soo dhaceen intay darbiga ka soo daateen guriga waa jiingada iska dooxeen isu laacsiiyeen oo ay barsidii noogu yimaadeen gartay sidaasay u jiiteen asay intay soo sixleeyeen oo soo dileen oo soo garaaceen goortaas la soo tageen si u soo garaacayeen mar labaad soo celshay waa gartay 6 saac habeenimo isagoo ku xakumeen ku qasbeen oo afka u galsheen hoobiyaha ridi jirta waa gartay koronto say ugu wadeen dul ugu wadeen u cadaadinayeen gartay waxa la yiraahdaa hadda yiriya hoobiyo guriga jira honna fuku qasabtaya iyo iyagu wadeen ama qaane waxay dhaheen hoobiyo guriga yaala waa gartay dhulka qodaa la yiri marka hoobiyi mahana oo meeshaan qoday dhaheen hoobiya jira oo sheegay waxayna geejiridiisa noqdeen waxba ma aysan noqonin waa wax been iyo alifaad ee tabcid intay wateen hoobiyo been ayagu ku masawirteen iyo koob u saareen ama qaan adinku marka ma ka daba tagteen markii ay wateen oo ay sidaas dhacday laba bari laba maalmood aan bal aan meel ay geeyeen waa gartay tabcdiyan waxaan ugu tagnay gaal shirmeel yire waa gartay hadda asagoo xiran oo silsilad ay saas ugu wadaan inoo horkeenana tabcaan oo mare asaga dhamsay u dilayeen baati biyo lagu soo umaleys waa gartay meeshii uu ku jiraan ugu tagi jirnay axad la arko sidii gaalkii kaniisada soo caabudayay maalin walba waa gartay oo axadii baa la tagaa axad kaliya la tagaa maalmaha qayreysan oo jimca ugu soo horeydo dhan lama taga ilaa maalinta axadda maahan waa gartay dantaan ugu qasbay anaka maalin axadda wiilka soo booqan jirnay markay aad u tagteen fursad ma u hesheen inaad la sheekaysataan oo aad wax ka weydiisaan wixii uu la kulmay maya oo asagana waa silsiladaysan yahay nin kalena saas ugu lamaantay soo marna afkiisa fiirina marna afkaaga fiiriha waa gartay ma fiican tahay waa fiicanahay oo iska jirin oo habeenka si la dila maana wax kale ma jiraan waa iska soo tagnaa anigana aragtiisa hadina la tusaan waxa u qaadana guul wax kale sheegna male ilaa waa naga xoog badan yahay markii maanta aad maqashay in wiilkaagii la dilay maxaa dareentay hooyo caloosha xanuun tabar waa taqaana waxay dareemaysaa in ka soo hadan nin raga tahay haddana nin raga aqligiisa qaba hooyo waxay dareemaysaa waad ogta waa gartay hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naxariisto maalin barakeysana gacanka xaq daran ay dishay isaga miyaa kugu weynaa caruurta aad dhashay maya xayna iga wey waa gartay aabahood waxaa la inoo sheegay inuu dhintay oo agoon uu ahaa agoon niman ku koriyo hooyo waa gartay isagoo yar miyuu aabba dhintay mise isagoo yar oo ciisoo dhin waa gartay iyo waxaan ku koriyay si ilaahay xaalkeeda ogyahay marka xoog iisoo keeno iisoo kuraydana balaayadaas dafatay waa gartay hadda marka muxuu qabanayay ma waxba uu baranayay mise uu ku shaqeynayay waa uu ii shaqeeyay wixii ilaahay iisoo dhiibo iyo wixii ilaahay noo calfo uu ii shaqeynay ka waran dabeecadiisa muxuu kaaga dhignaa bismillahir rahmaanir wax ifka la keeno aha ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinayaa inuu ilaahay u naxariisto dad badan ayaa ku dhageysanaya oo Soomaaliyeed oo dal iyo dibadba maxaad u soo jeedin lahayd dadka muslimiinta waxaan u soo jeedinaa ilaahay subhanahu wa ta'ala hay cadawga naga dulqaado gaalada naga dulqaado ilaahay abshirta hana waafaji islaamka ilaahay subhanahu wa ta'ala ha isku duub cadawgeena isku hal cadow aan leenahay cadawgeena Allah jabiyo diintana kor Allah ka dhigo